soo dhawaada daawadayaal Soomaali wixii sharaf ay lahayd iyo sumcad ay lahayd waxaa dhulka la galay nimanka haatan talada haya ee wadanka maamulayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa waxay dhulka la galeen sharaftii ummadda Soomaaliyeed waxay dhulka la galeen wixii qab iyo waliba sidoo kale qaaye ay lahayd ummadda Soomaaliyeed ayay gebi ahaanba dhulka la galeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo bilood ka hor waxa ummadda Soomaaliyeed u sheegay in cadawga koobaad ee Soomaali ay leedahay inay tahay Ethiopia waxa uu sidoo kale u sheegay in isagoo waliba masaajid ka dhaxadlayo oo markaasi khudbadiisa Jumcaha ku soo qaatayba in Soomaali wax kaleeto oo cadawa oo ay leedahay shabaab xataa kaleeto Ethiopia inay ka daran tahay Ethiopia waxa uu ku markaasi micneeyay inay tahay cadaw weyn oo ay tahay in Soomaali meel joogtaba inay difaac ka galaan oo iska jiraan oo ay iska kaashadaan sidii Ethiopia la iskaga dhicin lahaa oo lala dagaalami lahaa shalaytana intuu diyaarad bareefada qaatay oo qarashkiisa isagu la baxay ayuu ka degay magaalada Addis Ababa asagoo halkaasi u tagay inuu Abiy Ahmed uu soo raali geliyo oo uu waliba Abiy Ahmed uu siiyo wixii uu waligiiba raadinayay ee ahayd inuu bad Soomaaliyeed uu qaato haddii maxaa ka dhici lahaa in Abiy Ahmed soo baxo uu yimaado magaalada Muqdisho oo uu raali geliyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda Soomaaliyeed oo dhaho maqlaysaan ha ونما يهوشر وينو خلدمي مركان مصبي هي بلاي لهذه إنيجا مضحدي دلك وحسية هتقولي لا أغلب هان لهيدو وانسمر لا وحدي ولي صومالي قبكي الرجدي أنكلها أي جبي هامبا إن يا إيسي تجنا لهيدو وحنقولنا نن قبله أو صومالي كذا شيء أو مضح صوماليات أو كفانا له لكن جبي هامبا حسن شيخ محمود intuu wafuud kala diray oo kuwa kala diray oo wafti kala diray oo meel walba kala diray oo Abiy Ahmed raali geliyo u dhahay iyo ugu dambeynna isagu intuu u tagay ayuu Abiy Ahmed raali geliyay Soomaaliya haddii arintaasi ay ku sii socoto oo maalin walba qabkeedii iyo sharafteeda mid noocan oo kale intii loo dhiibo gebi ahaanba uu dhulka la galo Soomaali waa la waay waana la isweydiin dowrkii hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha ahaa waxaan ogeyn inay Kenya qayb dhan bad iska oodatay oo dhahday ana iska leh وكي مدحوين فرماجو مدحويني هراء سوماليا ومحكمات لفولي ودعوة أرتي لسمية كدمنا بدي أمد الصوماليات سيدي لقوسو عليه نين كان بدي أيا لقع العلنية قلبا وضن أيو ربا إنو هشيس كورقا لشارع كان يوسيي ما انتنا إثيوبيا أيو ربا إنو قيب لن أقويو أقبيها بأوسيو مصبحي ولا قدرية مصبحي وحوها نلا هذا جستي أول ده أضو صحيح شاكدا بلو labaatanka bari iyo labada bilood baan meelaha dhawaaqay oo ummadda Soomaaliyeed qeyra beena ku abuuri kadibna aniga ayaa saxiixayo oo saxiixa ugu dambeeyo yeelanayo Ethiopia waxay doonayso iyo waliba dhaqaalahan ka qaadanana adoo xataa madaxweyne ama noqonina waan qaybsanaynaa iyahay marka sheekadii musabixi ee 20 kilomitir Ethiopia lagu gacan galiyay ma ahayn musabixi oo kelita ee waxay ahayd sheeko lagu wada heshiiyay isaga iyo waliba sidoo kale Ismaaciil Cumar Geele iyo waliba Xasan Sheekh Maxamuud markii ay iskugu tageen magaalada Djibouti ee wadankaas Djibouti oo ay ka qayb galayeen xafladii beenbeen tahayd ee Saadaq John lagu siinayay gabadha uu dhalay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele haddaba Soomaaliya haddii Ethiopia qorshaheedii uu fulay oo sidaasi ay badda ku soo gaarayso waxa gabi ahaanba Soomaaliya ay weynaysaa oo gabi ahaanba macaasalaameynaysaa waddanka Eritrea oo 10 sano ugu dambeysay dabcan gacan lixaad ama markaasiba gacan weyn ku lahaa dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed ciidan fara badan halkaasi ay joogaan horeyna sidaan idin la socodsiiyay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Eritrea ayaa sheegay in ay gabi ahaanba Eritrea macaasalaameynayso Soomaaliya xiriirkana ay ka fiirsanayso wax kasto calaqaad ay la leedahay ka fiirsanayso haddii ay ogolaato in Ethiopia ay soo gaadho xeebaha dalka Soomaaliya oo halkaasi laga siiyo saldhig military dhinaca kale Xasan Sheekh Maxamuud markii uu ka soo laabtay Abiy Ahmed oo wixii uu ka soo jijafan karay iyo wixii uu ka soo qaadan karay iyo wixii uu sheegay karay uu sheegay oo halkaasi lagu soo dhameystay waxa uu ku soo laabtay Kenya waxaana uu kala hadlay heshiiskii uu la soo galay Xasan Sheekh Maxamuud la soo galay Abiy Ahmed maxaa ka galay maxaa aduu marba go'aan gaadhay go'aankiisa isagu ha ku akaado oo ha gaadho oo hala tashto ummadda Soomaaliyeed wuxuu la tashanay saaxiibadiisa la tashto laakiin heshiiskan ayaan la soo galay Abiy Ahmed heshiiskan ayaan la soo galay Eritrea kan ayaan la soo galay Kenya makhraati ka noqo ogow ninkan
waxaa gebi ahaanba uusan lahayn go'aan iyo qab madaxweynenimoba kama muuqato. waa nin markaasi mukhalisa oo gebi ahaanba markaasi kolba nin u daba fadhiisanayo wixii isaga laga rabay inuu qabsado. soomaali sharafteedii dhulka ayuu la galay ninkan. haddaana ummadda soomaaliyeed ay ninkaasi iska qabanin oo dalka laga badbaadininna, soomaaliya waa la isweydiin doonaa, waxaana kala goosan doono wadamada dariska aan nahay sida Ethiopia oo haatan la siiyey baddii iyo weliba sidoo kale bariga ay u mari lahayd, iyo weliba sidoo kale waddanka Kenya oo ayaga laftirkooda qaadan doono qaybo fara badan oo ilaa iyo xilligan ciidamadooda ay ku sugan yihiin dhowr iyo 10 sane ee ugu dambeysay aynaysan jirin wax markaasi wax iska weydiinayo ciidamada Kenya ee mar walba galaya gudaha Soomaaliya ee cid wax iska weydiinaysa jirin. kuwa Ethiopiaanka kumanaanka ay soo geliyo labadaasi wadan intay u heshiiyaan ayaga ilaa xuduud la leh waddanka iyay say rabaan ugu baashaalayaan. Soomaalina maalin walba doon ayay saaran tahay oo badda ayay gelaysaa, qaarna way dhimanayaan, qaarna way tahriibayaan, qaarna siyaasiyiinta hadda jooga intay baasaboorro diblomaasi ay u sameeyaan ayay leeyihiin waddan hebel tag, oo madaxweynuhu markuu baxo ama wasiirku u baxo 20 buu hore u kaxaysana wuxuu uga soo tegayaa wadamadii uu tegay. marka Soomaaliyana maalin walba saa ayaa loo sii daabulaya, qaarna qarax baa iska dhamaynayo. waddankii marka wuxuu noqonayaa waxay qaybsadaan Kenyaan iyo weliba soo kale Ethiopian. hadii waa inta uu joogo Xasan Sheekh Maxamuud iyo dadka la midka aan qabka lahayn ee waddankii Soomaaliyeed oo macdantiisii iyo nimcadiisii ay buuxdo aysan jirin cid uga faa'iideynayso bulshada baahan ee malaayiinta ee ku dhaqan Soomaaliya. gudahaan daawadayaal waxyaabo ka soo kordho qaybaha dambe wararkan ay ku soo gudbin doonaan tan iyo tan midka kan xig kulmi doona waxay ka tahay sidaas iyo ammaan Allah.